السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalahayga qaaliga waan salaamayaa salaan kadib walaalayaal subscribe like share gareeya adinkoo mahadsan xasidnimada xasdin waxa iska xasda maaha subscribe-ka iyo saara adinkoo mahadsan walaalahayga intaas kadib walaalayaal waxaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala Aweys Cali Baafow iyo Xasan Toob arrimo baryahan media dhex socdo oon aad ula yaabay. Xasan Toob wallaahi nin maanta maasha Allah nin wanaagsan aniga aan kulba sida shaqayga iyo ay tahay qalbiyada nin wanaagsan inay yahay oo maanta tayo leh wax soo saarna leh dad badan soo gacan qabtay oo maanta Aweyskaba kamid yahay. Aweys Cali Baafow ninkii maanta soo gacan qabtay oo asagoo maanta qaabka u yeelo ay ummadda u dhantay ay ogtahay ayna ogeeday oo la aragtay dan dareysan silacsan darbi ninkii ka soo waday oo maanta aan sida u arka disaar ku noqdo disaar sababta oo ah wuxuu ku jisaaray ninkii maanta sharaftaas u soo yeelay Xasan Toob ilaahay alxamdulillah inuu dhahlahay maanta uu kumaadin uu mahad celin lahay sharafta haddu leeyahay iyo markii uu ahaa in isa fiirsado muuqaalkiisii u horeeyay oo markii la soo waday iyo hadda muuqaalka sida uu yaalo in isa fiiriyo ya ayaa wanaagsan iyo waxaan dhahlahay Aweys Cali Baafow war saaxiib walaalkay adigoo mahadsan muuqaalkaadii hore waa ku jira media aad oo YouTube-ka gal fiirso adigoo ilki eber dhar xuno duluf balaayo qabo koo la cabayo qaabkad u taali fiiri iyo hadda sida uu eg tahay iyo si sharafta aad leedahay saaxiib macana niyow bisaarnimada waa laga fiican yahay ilaahay mahad celi ninkaasna mahad celi oo maanta walaalka oo ku soo gacan qabtay aad soo shaqeysay dadka waa wala shaqeystaha shaqada iyo waxa meesha yaalo hadii aad taa wax Xasan Toob ka xunay mase asbo oo isku dawmari oo wax adiga ugu soo dhiib kugu socday aska dawmari in maanta aad ku tagto waxaas ma ahaanba waayo waxa in fiirsay ahayd waqtigii aad meesha aad imaanaysi durdur media Xasan Toob soo waday muuqaalkaadii hore waxaas in fiirsato ya adib ad isu fiirso ayaa laga rabay taas waxaan ka leeyahay saaxiibow walaalka Xasan Toob maanta abaalkiisa ma gudi kartid qashinaas ka soo qaaday ma fahantaade marka mid kale gabadha walaashii oo la dhalatay Aweys Cali Baafow walaashay walaalka midaan ku leeyahay jawaab taasna adiga durdur ka soo bixi durdur kulba maanta aad ka hadla doontaa jawaabta waxaan ka rabaa adiga walaalka ma hadaad aragtay oo maanta ma walaalka noqday marka aan sidaa ku leeyahay ujeedadaan ka leeyahay waxay tahay shalay markii Aweys Cali Baafow oo halkaas darbiga jiifi oo qabdarada ahaay silac oo ahaay asoo af dunsanad marinayso oday 9 jir afkiisa yaa taa af duleelo laga soo waday ya markaas walaalka ma ahayn miya hadda ma walaalka noqday inaad waxaad leedahay ninkii meeshaas ka soo waday Xasan oo ahaa Xasan Toob maanta inaad mahad celisaan oo maanta ninkaas aad tiraadaan waryaa walaalka waa ka qaldan tahay ya in adigi maanta aad soo boodo waqtiga Aweys Cali Baafow dadnimadiisa maanta la soo saaray oo maanta sharafta iyo qiimaha awaanto leh oo loo yeelay gurigaada ma joogin maanta gurigiisana ma joogin
maanta guri oo leeyahay Xasan Toob ku noolaa oo maanta noloshiisa uu ku qaadanay dharkana laga bedelay أنا ما أنت أتصب بدمعهن أو ترى هذا استوى وحنوي استوى الكيسانك ما أنت اللي ما ولا كان نقضي ولا لي وحنا كلها هي دب إسكفير أنا تا دب إسراء ولا لك حسن طب أنا ما أنت أتكسو أترى هذا ولا لك أبوها واي نيجي سامك إن صار وحنا أنا ترى أفنت واحد ماشي يلا لعق أدلاد ninka intaas lacag ninka soo deeqayo xagee jooga maanta Soomaaliya ma uu maleynayay hunguri asoo qaadin hunguri aad helaynin oo haddana aad in jirin Xasan Toob sheegayo oo nidaamyo uu sheegayo hasku qaadin walaalkana isku xumeynin walaalka isku xumeynin walaal dhalnay walaalnimada maanta adduunka ay taala saaxiibay ma fahantay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. والسلامتين دمان سومالوين